badbaadinta ruuxda sheegeen dhismaan uu ku soo dubay waxaana jira khasaare soo gaaray dadkii dhismaan dhisayay waxaana sheegay in 4 ruux halkan ay ku dhaawacantay oo loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho sidoo kalena hal ruux uu ku geeriyooday mid ka mid ah dadkii halkan goobjoog u ahaa ayaa inooga warramay sida ay wax u dhaceen ayuu ku bilaabay magacayga Cabduqaadir Ismaaciil Xuseen oo joogo oo Sobe بتجورس مركز دعدي أنا وحنا تاجنا مساعد لاب كيسة أنا وصور مريض قلت كل ما استتاجنا مقاعد الشيخ عويل مركز بشغالة ومش لودري اسمه كوهي أيام مش واحد جاري هذه ويرانا دو حماس مثال شيء لو قفطنا أسد حفظني على شيء حتى أفرق فوق أنا جوردي وصوص صامي أمراض صامي على لودر إسلام دين أفرق فوق كسب عن كسب صامي دنيا كل الله أفرق عن حلقة عبد جدك قارب حيلين لو قفطنا على قفطة يا خجيني مركب مركب وضع وحمد سيد غربات مال ماشي قاعد مهرب مال أو مهرب وعدا المجوب جنا عسل اللي قدي يربو قمت والله سياتا مدب لا تعمل اسمه sidoo kale gudoomiyaha waaxda Jeneraal Daawud degmada Wareejinta gobolka Banaadir Cabdisaaq Maxamed Yuusuf ayaa goobjoog waxa uu uga warramay khasaaraha dhabta ah ee halkan ka dhashay iyo maamulka sida ay ugu soo gurmadeen dadkii halkan waxyeeladu ay ku soo gaartay marka maamulkiin wariye Cabdisaaq iyo dhamaan warbaahinta iyo asxaabta kale meesha ku jira gurmadka meesha noo maayo nasiib marka calaamay afar meesha ka soo gudbay dhaawac mid aad u daran iyo 3 qolof marka waxa jiro mid ka mid meesha ku jira gudaha waxa laga saaro insha Allah rajayna mid ka sina soo saaro si degdeg ah oo saaro sidoo kale waxa garab weyn laga siiyay maamulka gobolka Banaadir oo ku socda ismaha howlaha guud ee gobolka Banaadir asra xalaayo asoo tiimkiisa oo noo socda waxa rajayna insha Allah mid ka mid ka dawladda inaan soo bixin karo soo wax ka badan iyagana waa ku naasiyay على هذا وربعين تقول جو مقدشة